qiimaha naftaada. inkastoo badi ay soo kordhiyaan qorayaasha isku hawlaya dhigidda dhigaalo kala duwan, haddana dhigaalkan kooban ayaan u arkaa fursad dahabiya oo ka soo dhex baxday dadaallada yar. runtii waa dhigaal aad ku oonbaxayso kana sii xiisaynayso. bogaboga ka sii dambeeya waxaaba moodaa inay isku jiraan goon yihiin wakhtiga uu soo baxay dhiganuhu iyo baahida loo qabay. magaca dhiganaha oo aadba keliya ku oonbaxayso ayaa ah mid qiimo gaara xambaarsan karo qiimaha naftaada. waa kelmad ay soo hoos galayaan kumanaan waajibaad, ujeedo, hadaf, han iyo garashada saxaad ee nolosha. waxaana sax ah inaadan noolaan karin ilaa aad fahanto qiimaha iyo ujeedgelinta ruuxdaada. intaas aynu sheegnay iyo in ka badanba waxay si nuunad iyo maskaxshiil ah lagugu soo miiray dhiganahan. ugu dambayntii waxaan duco iyo mahad celibba u meerinayaa qoraaga isku hawlay in uu inoo soo gudbiyo dhigaalkan qiimaha badan. anagana weyne ha inaga yeelo kuwii ka faa'idaysta fursadan qaaliga. xaqiiqdii xiliyadan ku jiray weeracashadiisa waxaan ahaa mid si tilaab wax ooga bedelay dhiganahan, isla jeer ahaantaasna waxa uu ahaa mid marba marka kasii dambaysa isii xiiso gelinayay. weyne ayaan mahadsan qoraagii dhiganaha muunadsan. qof walba oo bani aadam ah uu garan karaa nafteenu waxay tahay. si kastaba haloo garto naftu waa maxay in yar aynu sharaxaad ka bixino nafta inagoo koobayna. haddaba marka laga hadlayo nafta macnaheeda guud waa wax jira. qur-aankana waxaa ku soo arooray aayado tilmaamaya in naftu tahay waxa keliya ee basharka la siiyey ee ugu qaalisan. naftu waa waxa jecel inay ogaato masiirkeeda janno ama naar. sidoo kale nafta waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood oo kala ah: mid wanaaga ku faraysa, mid xumaanta ku faraysa, mid wax ku weydiinaysa sabab ma aad waxaan u samaysay. mida wanaaga ku faraysa. naf waxaa jirta kuu kala soocasa wanaaga iyo xumaanta, sidoo kalena kuu leexinaysa dhanka wanaaga kuuna sheegasa waxa adiga ku wanaagsan adduun iyo aakhiro. waana nafta ugu hardanka badan nolosha qofka, maxaa yeelay waxay dagaal kula jiraa shaydaan asagoo kuu caabinaya xumaanta iyo waxay neceb tahay naftaas wanaagsan. sidoo kale waa naf jecel inay kuu sheegto shirkaaga iyo xumaantaada. naf ahaantadana aad isweydiiso maxaa shar adduunka kuu yaal, maxaase khayr kuu yaal. sida aad u xisaabiso lacagtaada, u xisaabi duuntaada iyo khayrkaaga, ogowna in wax walba la xisaabin doono maalin un. mid xumaanta ku faraysa. naftani waxay alaaba saf dheer kula jiraa shayaadiinta si ay wanaaga ooga weeciyaan nafta ku faraysa khayrka. ilaahayna wuxuu yidhi nafta wanaagsan waxaa cadow ku ah shaydaan iyo shahwaadka dunida. naftan waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuushaa si ay qofka u seejiso khayrka adduun iyo midka aakhiraba, waxayna ku dul istaagtaa qofka isku bandhiga. naftan iyo shaydaan waa laba cadow, inkastoo markasta qofka baniaadamka cadow ay ku tahay nafta iyo shaydaankuba, haddana waxaa jirta naf u soo xaydatay xumaanoo dhan, waxaana ka badbaadi kara qofka adkaysta naftiisa wanaagsan. mid wax ku su'aalasa. waxaa jirta naf ku su'aalaysa waxaad samaysay, inkastoo culimmada saynisku ay yidhaahdeen naftan waxa u saaxiib ah dadka caqliga leh, maadaama ay wax isweydiiyaanba garanayaana waxay saxeen iyo waxay khaldeen isweydiinayaana sababta ka dambaysa waxaas. waa naf u taagan inay ku xisaabiso adiga, wax walbana kula saxdo, ha ahaato afkaarta, go'aanada iyo wixii la halmaala. wakhti badan inaguma qaadanaso ogaanshiyaha nafta, qof walbana asaga naftiisa qiimayn kara sida buugu tilmaamayo. balse waa wax laga maarmaan ah inaan wax ka ogaano nafaheena, kadibna aan qiimayno, ogaanana waxaan ku fiicanahay iyo waxaan ku xunahay. baro fursadaha ku horyaala iyo caqabadaha ku hortaagan sidaad ooga gudbi lahayd, fursadahana ooga faa'idaysan lahayd. qofku markuu si xirfad leh uu u isticmaalo wakhtigiisa ayuu si xirfad leh u qiimayn karaa naftiisa. waa muhiim inaad dareento naftaada, sidoo kale isweydii waxaad ku xun tahay iyo waxaad ku fiican tahay. alaaba qorshee garana qiimaha naftaada ay leedahay. waaqica sii sawiro markaad sawirato waxaad jeceshahay. waxaa caqligaaga hoose ku sawirmaya sawir muuqaaleedka aad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka. istaag hadda oo soo qaado buug, waxaadna qortaa intaad ka og tahay naftaada. kadib waxaad si cad u fahmaysaa waxay tahay inaad qabato mustaqbalka dhow. qofka baniaadamka ah wuxuu ka kooban yahay 2 lahaansho iyo ahaansho. lahaanshiyuhu waa waxaad adigu leedahay sida hantidaada, gawaadhidaada iyo wixii la halmaamala, balse ahaanshiyuhu waa shakhsiyadaada dhabtaa iyo waxaa tahay adigu, yacni sidaad adduunka ku timiday awalkii inaad garataa. arrinkaasna waa tiir weyn oo caawinaya inaad mustaqbalka guul gaadho. waad ku mahadsan tahay inaad dhammaysatay. la soco qaybaha kale dhowaan. waxaad noo tahay qof muhiim ah ee nagu soo biir oo barta guduudan guji.